subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. dalka Ukraine waxaa madaxweyne loo doortay Volodymyr Zelensky oo ah nin caan ku ahaa dhinaca jilista filimada islamarkaana filim uu hore u jiray ku matalayay madaxweynenimo. haddaba madaxweynahan cusub sida uu kursiga ku gaaray iyo weliba waxa uu ahaa filimkii uu hore u jilay oo aad loo hadalhayo ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay maxamuud carab sabuub oo ah suxufi madax bannaan oo jooga magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. waxa uu ku dhashay meel u dhow Kiev waxa aanu sidoo kale uu ahaa ama uu kusoo koray magaalada Kiev oo wax ka bartay cilmiga sharciga ayuu bartay waa sharci yaqaan markii dambena waxa uu noqday jilaa waxa uu sidoo kale yahay nin wax qora ama qoraa ah waa majaajilayste waa agaasimaha shirkadda loo yaqaano Cartel 95 oo jisha iyadoo ama soo saarta filimaanta kartoonka ama filimaanta ciyaalka sidoo kale waxay soo saartaa filimaanta majaajilada iyo qosolka waxay sidoo kale soo saartaa filimooyinka jacaylka adigu guud ahaan filimaanta ay soo saartaa waayo marka goormuu siyaasadda kusoo biiray ee siyaasadda uu soo galay Zelensky waxa uu si dhaba u shaaciyay inuu kusoo biirayo ama uu yahayba murashax madaxweyne 2018 oo markaasi la filayay doorashooyinkii inay qabsoomaan 2019 waqtigaasi ayuu door biday ama uu ku dhawaaqay inuu kusoo biiray. waan gartay hadda waa madaxweyne ku guuleystay dabcan dee tiro aan sahlanayna waa ku guuleystay wareegii labaad doorashada maxaa u sahlay ama u fududeeyay inuu doorashada ku guuleysto isagoo ninka jilaaga ah waxyaabaha uu fududeeyay ama u suura geliyay waxaa kamid ah guud ahaan horta dadka kamid ah ugu horeeya oo inta ugu badan mushkilada ugu badan ay ka haysatay dhinaca dhaqaalaha oo moodo in uu wadanku yahay wadan qaniya balse aan ahayn wadan u isticmaalay qaninimadiisii waxyaabaha kale u sahlay waxaa kamid ah galdololooyinkii dawladda oo waqtigaasi isagu ololaha uu ku galay sida xasilinta dhaqaalaha oo uu sheegay in uu yahay nin xasilinaya sidoo kale waxaa kamid ah howlaha ama gobolada bariga oo dagaali ka socdo sida uu sheegayna ay dadkii hooyooyinkoodii iyo magaranaysa sida uu sheegayna uu u soo celinayo walaaladood iyo dadkii ay dhaleen iyo dadkii qoysaskooda kala maqan uu ku tilmaamay guuldarro dagaal lagu guuldaraystay ayaa kamid ah waxaa kaloo walaal kamid ah howlaha musuqmaasuqa oo aad iyo aad u ragaadiyay wadanka oo isagu sheegay in uu yahayba sababta ku kaliftay in uu wadankan uu isu soo sharaxo madaxweyne waxaa la tilmaamaa inuu jilay filin madadaala amaba qosola oo dabcan isagu madaxweyne ku jilayay filinka haatanna waaba madaxweyne filinkaa isagaa dad faahfaahin naga siiso filin nooceeyu ahaa horta waxyaabaha aadka loo hadalhayo weeyaan waa riyadii runta noqotay kolley wuu ku matelay filinkaa wuxuu ku matelayay madaxweyne qaabka jiliinka uu kusoo galayna waxa uu ahaa isagoo macalinimo kasoo bilaabay kadibna isu soo sharaxaya madaxweyne sababta uu isugu soo sharaxayana ahayd habka musuq maasuqa in uu la dagaalamayo ayay ahayd horta filinkaasi waxa uu ku saabsanaa qaabka ay u dhaqmaan madaxda iyo madaxweyneyaasha wadanku ama guud ahaan si guud marka loo eego waxaanu diiradda saarayay waxyaabahan ragaadiyey dib u dhigay isagoo inta badan kasoo bilaabay xagga hoose macalinimo kadibna uu noqonayo madaxweyne qaab majaajilaysan ayuu u dhigay oo qurux badan ood moodeyso in aada loo xiiseynayay taas oo waqtiyadii ay kamid ahayd in aada loogu bartayba majaajiladaasi uu ku matelayay madaxweynenimada. waan gartay waaye ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo maxaa hor yaalla hadda waxyaabo badan baa walaal hor yaalla howlaha gobolada bariga ayaa hor yaalla ood moodeyso in diiraddu ay u saaran tahay dhinac kale waxaa ka yaala sida uu sheegayba arrimihii Yurub waxaa kale oo calaamatu su-aal hortaalla ah oo arrimaha musuq maasuqa oo inta badanba ah arrimo hor yaalla oo looga baahan yahay qorshihiisii iyo hawshiisii. kaasi waxa uu ahaa maxamuud carab sabuub oo ah suxufi madax bannaan oo ku sugan magaalada Kiev ee dalka Ukraine. cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu uga waramayay sidii uu xukunka ku yimid madaxweynaha cusub ee wadankaasi Volodymyr Zelensky.